السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa shicibka Soomaaliland meel kasta oo joogtaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba salaan qaali ayaan idin soo diraya. waxaan idin ku habalyeynaya dalkan yar ee aqoonsi haysan ee mar dhaweed ka go'ay Soomaaliya dimuqraadiyadda meesha uu ka gaaray. dimuqraadiyadda aad gaadheen heerka aad maraysaan baan idin ku habalyeynaya. Africa model baad u tihiin wadamadan Afrikaanka amba geeska Afrika amba Afrika dhamaanba dimuqraadiyadda haysataan wadan haysta uu yaryahay. wadamada dunida ku nool intii wanaagsaneed baad ka soo qaadateen dimuqraadiyadda. haddii aad heli lahaydeen dawlad fiican oo transparency ah oo accountability leh oo la xisaabtami karo oo wixii dalkan soo gala dadweynuhu la socodsiin karaysa mar hore ayaad aqoonsiga heli lahayd. infrastructure ka dalka dhisaysa wadooyinka dhaqtarada iskuulada laydhka biyaha inta ka adag baad u baahantiin idinku wax kale oo baahan idinka shaqaysanay idinka gaarsiinaya wadankiina si alla sida aad doontaan wadamada geeska Afrika iyaga imika ugu horeeyay bayac mushtarkana heer bay ka gaadheen. waa run waxaan ku hambalyeynaya aad iyo aad baad u shaqaysateen laakiin waxa idinka maqan dawladda idin hogaamin lahayd. 7 sano ee ina dhaafay waxa wadanka haystay dawlad burcada oo dalkii iibisay oo wax walba xaraashtay iskuuladii xaraashtay dhaqtaradii xaraashtay station police-kii xaraashtay iskuuladii dumarku wax ku baranayeen women's club-kii xaraashtay airport-adii xaraashtay boorkii berbera xaraashtay oo wax walba iibinays oo lacagaynays oo meesha ay wardayaan ay u guuriyaan la garanay waxbay urursanayaan. waxay ogaayeen waxaan maanta dhacay arkayeen markaas ay waliba soo joogaan leeyihiin halana doorto maxaa lagu dooranaya ma tuuga lagu dooran ma booba lagu dooran ma burcadnimo lagu dooran ma xaraash ad xoolihii umada xaraashisa lagu dooran ma qabyaalad baa lagu dooran ad dadka kala qaybinayso oo reer walba dhawr ka taabanayso maxaa la idinku dooranaya waxa qori ee la idinku xasuusan kara maanta maxay tahay kulmiye waxa lagu xasuusanaa dalkoo dhan buu iibiyay dalkiibu xaraashay hatta wuxuu xaraashay saliiladii dadku wax ku iibsanayeen meel walba uu xaraashay dhaqtaradii waa la xaraashay iskuulkii women's club-ka dadku xogban hodeel baa laga dhigtay waxa la wixii guri Soomaaliya ay ka tagtay ee dadkan ay lahaayeen waa la xaraashay waxa la wixii aasaar dalkan ay lahaayeen waa la iibiyay. maxay ku doonayaan marka maanta maxay ku raadinayaan oo doonayaan inay ku soo noqdaan ida waxa meedaan dhig maxaad hambayseen مشرف بالليدين شرفنا مليهدنا كرامنا ملينا ضدنا مليهدنا ضميرنا مليهنا وحلا إيدين كوها قردو مانتا وددك الله ورمان إنساني ما جرتو ودن كوردن بضو حراشتين انتا وحا إيدير أنيقا وحا إيدير وحا رباينا مانتا الله الله ريرك أرغو أن كسو تشيدو بيش أن كسو تشيدو أيها روا مانتا إن الله الله وادركتان كلمية هلكا ومريي سومالي لان waxba idinku ma aydaan hayna wax la idinka xaraashay ma jirin oo waxa dhuga kama dhisneen dhul iska banaan oo iska nooshiin bahay laakiin waxa dhacay wax taa ka duwan dadkii baa la iibinaya dadkii baa la xaraashaya miisaan baa loo qaatay wala miisaamaya ilmaha yar islaanta odayga dhammaan qof walba $30 bixi baa leeyahay meel walba laga soo qabanaya wala soo urunaya si loo miisaamo dadkii bili aadanka baa la iibinaya gibir wax la yiraahdo cashuur baa laga qaadaya qofkii socda ee xoolihiisa wata ayaa la cashuuraya. maxaa idinku dhiban maanta idinka maxaa tala inoo ah inaga reerkeena maxaa tala waa beesha ciise maxaa tala inoo ah kulmiyatuuna gaarsiyood ogtiin dadkeenni uu dilay xabad buu la tagay saylac 9 qof buu ku dilay oo xabad ku dhiftay lugaya dadkii uu barakiciyay dadkii wada deganaa isku diray idinkii reerkii kala wada deganaa ee abtiyaasheen ha usu keen diray dhabarkay ka wada taabteen mid walba qoriyaa loo dhibo reer kale la yiraahdo dagaal baa iyo idinka dhaxeeya nabad waa loo diiday dadkii horumar ma jiro dhaqaalaha ka soo baxay loo yaacado hargeysu inoo dhaafa wadada yar ee cashuura ee 2 kiiloomitir ee markan anigu dhashay ilaa maanta waa sidii dadku hore u socdaan laakiin inagu dib baan u soconnaa dhaqtar ma lihin iskuul ma lihin wada ma lihin dhaqaalaha dalka wax naga soo noqday ma jiro
meel walba saasaan ku nahay 7 goobood iyaga inagu haysta 6 goobood iyaga inagu haysta nolol iyo nafaqo midna toono inooma ogola markaas ay naxaraashayaan waliba waxay naga qaadayaan gibir baad bay naga gurayaan qof kasta oo nool $30 bay ka qaadayaan dhibaatada uu noo geystay ma yara inaga Soomaaliland kale way xaraashiyeen dhulkay xaraashiyeen laakiin dadka ma xaraashin inaga dhulkii baa la xaraashaya wixii dalka ka soo baxa meesha degmada ka soo baxana shilay naguma soo noqdo meel walba shirkadaha la keenay badii shirkad baa joogta oo kalluumaysiga wax walba gobolka dhan ee aynu deganahay nin qoro mas'uul kuma liin 20 baa jooga hal qof oo mas'uul kuma liin inagu wallayna qabsaday beel kala qabsatay baana kulmiye qabsaday baana halkii ugu hooseysay inay gaarsiiyeen maantana waxaan arkayaa qaar durbaanka u tumaya meesha lagu dhibo waa laga guuraa meesha lagu dhibaata kugu dhinka muslimka amba muuminka god 2 jeer laguma wada qaniino kulmiye uu ina qaniinay uu ina diirtay uu ina saray wuxuu noo reebay ma jirto dadkeenii buu cashuur ka qaadaya gibir waxayna waligeena soo gal anu saylac baan ku dhashay la yacdo waan mari jiro Jabuuti aan tagi jirnay Faransiiski kaarar baan lahayn dhalmadu la yiraahdo warqado baan iska lahayn dadka oo dhan waan iska gali jirnay waan soo bixi jirnay waxna cashuuray ma jirin maanta se kama talaabi kartid ma gafayaal baa la keensaday dhiigiini baa laga baayac mushtaraya inaad xoreysaan weeye maanta maalintiina weeye dhibaatada in kulmiyeena soo gaarsiiyay reer kala abtiga ahay ee wada deganeen saylac ilaahay nagu wada abuuray ee meel walba wada deganeen ayay isku keen direen oo dagaalna dhex galiyeen dhibaatada inoo geysteen ma yara waxbarasho la'aanta dhakhtar la'aanta waxa ay naga daran dhibaatada ay mentally inoo geysteen ee dadkii walaalaheena wada nooleen nagu direen ee kala qaybiyeen maxaa maanta markaa tala ninka ciise ee yiraahdo kulmiyaan uu shooteynaya amba waxbaan kulmiyaan ololanaya muxuu noqonayaa marka ninkaas wuxuu noqonayaa munaafiqna waa fi naar daliilkana waan sheegaya la yaldiq almu'minu fi juhratan marratayn ninka muuminka god 2 jeer lagu wada qaniino 2 jeer mahna 3 baa layna qaniinay maanta matay shaqo kuma liinagu kulmiye halka umadu u guurtay ee leerka ka baxaayo ee Cabdiraxmaan Cirro xisbiga wadani ayaanu guurayna maanta ninkas inaga inoo matalo nina waxba haysan wax cunaba haysan haddii 10 oday meel la isku keenaan qadaba haysan oo la yiraahdo wadani baan nahay calama loo xidho way iska aqbalayaan way qofku markuu dhareegsan yahay oo wax haysto ayuu siyaasadda ka hadla laakiin qofka joonaya dad ma matalo oo waxba haysan inama matalaan kooxdan yaree Jabuuti laga soo ololeeyay ee Jabuuti wataan musabixiye wataan reerkiisu ee Jabuuti ka timid ee lacagta qaybinaysa inaga namatasho inagu danaheena iyo mustaqbalkeena inaga ayaa ka mas'uul ha eeganin xafladaha Jabuuti lagu qabanayo ee xaafad walba lagu hayo ee musabixi loo ololeynayo inagu shaqo kuma lihin inagu danteenu kuma jirto inaan hadda aan bixino lacag baadin leenaga gur hadda shaqo kuma lihin iskuul la'aan hadda shaqo kuma lihin waxbarasho la'aan biyo la'aan dhakhtar la'aan wada la'aan nolol la'aan nafaqa la'aan ban yaan joognaa maanta waxaan ku biireynaa xusbiga wadani halkaas uu leeyahay ka baxaya ummadii oo dhan baa iskaga dareertay kan meeshan waayo wax loogu sugaan jirin baba maxaa lagu dooran ma lacag baa lagu dooranaya lacagtan ay Jabuuti bixisay ay doonayso dimuqraadiyadda Soomaaliland inay ku baabiiso oo dhaqaale galiso oo tiraakaarasha iibsada boorma ka iibsada saylac ka iibiya lugaya ka iibiya lacag bay wadaan iyagu lacagtuna dimuqraadiyadda halis bay ku tahay dadkani dimuqraadiyadda samaystay ee Soomaaliland ayay rabaan inay ka burburiyaan waayo dimuqraadiyadda Jabuuti halis bay ku tahay Jabuuti waa dictatorad haday dimuqraadiyadda Soomaaliland sida uga sii hirgasho ma shaqeynayso kuma haysan karayaan dadka bir xadiid ee lagu hayn karayo dadka bir xadiidka lagu haysto iyo xariga lagu haysto sida darteed bay lacagta u bixinayaan inaa uu siciid barwada madaxweynaha 25 milyan oo dollar bay bixiyeen islaam 15 milyan waa tamiidiya ku jirta daragteen ninkaana uu siciid leeyahay 10 milyan oo dollar wax kasto dhaca si ay doorashada u helaan oo iibsadaan amba ay u khalkhaliyaan kombiyuutarada wax lagu dooranayo
taana Soomaaliland baa uga digaya iyo guddiga commissionka inaad ka digtoonaataan ciiso maanta ninkii kulmiya ku noqday munaafiq buu noqonayaa saan idin sheeg munaafiqnimana idinkuma ogi ballanteenu waxay noqonaysaa inaan xusbiga horumarka ku biirno wadani weeye ciis halkaasay noo taala halkaasaan wanaag noo yaala halkaasaan iftiinku inooga muuqda halkaasaan dhulkeenni dib inagu maamulayna halkaasaan kooxaanina qabsadayna dul degay ee dhulkeenni ina dul degay waliba ina dhuuqaaya inaga dhiigeenni dhuuqaaya ee caruurteen iyo dumarkeenna cashuurta ka guraaya halkaasay ku joogsanaya ballanteenu waxay noqonaysaa dadku way ballamaan tolkay maanta waan idin hadlaya inaan ballan wada galaan rabaa anigoo ah king waxaan leeyahay tolkayow ballanteenu waa wadani ninkii ballantaa jabiyana munaafiq buu noqonaya uufu bilcahdi inna cahdi kaana masuulan waxa ballani noo ah inta 20 la siiyay la ordayso shaqo kuma liin laakiin inta mustaqbalka iyo aragtida iyo nolosha iyo isbedelka dadkeenni ka hayso la xijeclow wadani baan nahay maanta ciise waxaan ku ogahay wadani xusbiga wadani inaad ku biirtaan oo u codaysaan ninka codkiisa kulmiye siiyay waa nin dhabarkay naga toogtay anag waa nin dhabarka naga toogtay waa nin aan dhibaatada iyada dareemayn waa nin aan mashaakilka nagu hayaan dareensanayn waa nin aan ka naxayn waxbarasho la'aanta gobolka ka jirta waa nin aan ka naxayn caafimaad la'aanta dalka gobolka ka jirta waa nin aan ka naxayn wada la'aanta waa nin aan ka naxayn tacadiga waa nin aan ka naxayn 20 kan mas'uul ee Soomaaliland ee jooga gobolka Salal ee qof qura ku lahayn beel la qabsaday baan nahay gabigeena waa la qabsaday waxaan ku xoroobaynaa maanta inagoo wadani ku biirna ballanteenu wadani weey kulmiyo waa cadowgeena waa ka reerkii dadkeena sida u galay waa kii xabadii noola yimid xabad caadi ah life bullet buu dadkeena ku dhiftay rasaas buu la dhacay لو يعدوا حكل جري ودكتي قفكي سيمر أيه كصوب حي المها يري إسلام تبا والله عشورة ميسان باوي على دتك يكون ميساما وحابا كحروبينا نور بانو باهناي عرورتينو وحبرتانو باهناي سكولينا هلانو باهناي دكتورينا هلانو باهناي ودوينا هلانو باهناي انفراستراكشركا قبل كينا إن المسؤول كان نقولنا باهناي وحنا المسؤول كان نقول كرنا إننا عضينا وضني عيسى بلنتين وودني عيسى دمانتي وودني نكان ودني كبير كل مية وعدا يا دبر كوي نجا توقتي من نمدينا ميل بوكاليس بوكيها وإن اسكو درين نقولنا وإن دنو ودا صحنا وإن ديجو نجا دحية وحن ما تبلني نوع ونسكو أجارينا إن ودني وقال عيسى قف قرى نكي كل مية لقوار كاي ومنافق بالحروف والألوف سدا نودي ويان نكي هذا كل ميانا هاي أم بهر صعدا ومنافق منافق نمذا واحد ودار وانين علوشي سوش قيصراي وندد كيس وحبه وقليل وندد كيس كنحين وندلكي كنحين وندمير لهين وندنما لهين وشرف لهين وكرامد لهين ووح الله وح ودورنا يا أنجرين عاد القاتوي ninka maanta kulmiye soo kacay dalka dhulkeena la yimaada ee kulmiyan oo laleynaya damiirka ka dhintay la indu damiir male maadaama waxa soo dhibaataa uu noo geystay kulmiye ninka ciise maanta yiraahdo kulmiyan u codeynaya damiir kuma hadhin da xaga damiirku ka dhintay ma waa laga yaabaa 10 ama 20 qof calooshiisa u shaqeysta oo rajo kale lahayn halkan ka hadlaya halka دونتا كهلاية إني جيران لكنها أقبلنا دمانتي وانا السلام يا تركيو وانا أدبان دين رجينيا وحان دين رجينيا إنكو كبيري وضاني تاسوي بلنتين وحا كلون ربا إنان إيرو دردارا هذا مدحوينها مستقبل هو مدحويني عرو مدحوينها تانوك مدحويني نمان كوها ملياني واي موقتا ماسف باناركيا دادكي شعبكي باناركيا ميل والبا maas baa soo kacay wada kaysa waxa gobolada ka dhacay annaguna kamidun baana itaalka go'ba yaraade annaguna wadani baana laakiin waxaan kugula dardaaraya sidii dhalinyaradii reerka aad wad ka soo jeedaa kugula dardaarmeen godob ha gali musuq maasuq iska ilaali
إسكا إلالي عدالة الدراء إسكا إلالي من جعليس إسكا إلالي ومدى وحي لغو وديبو وقايلي infrastructure buu dalku u baahan yahay dadku way shaqaystaan dalka hagaaji infrastructure kiis wadooyinka biyaha dhakhtarka iskuulada cadaaladda ugu hormaray cadaaladda dadku markay cadaalada la wada wada dhargaya taas adigana madaxweyne kula dardaarmaya inta aad xilka haysan Allah kugu asturo ninkii qabyaalad ka fogaada noqdo ninkii qabyaalad ka fogaada inaad noqotaan ka rajeynaya cadaalad darre ka fogaada godab ka fogaada ka fogaada nin jeclaysi ka fogaada intaas adigana madaxweyne kugula dardaarmaya all in all umada Soomaaliland waan mar kale aan idin hambalyeynaya waxaan idinku hambalyeynaya dimuqraadiyadda heerka aad ka gaadheen eed modelka u noqoteen geeska Afrika oo dhan iyo Afrika dhamaanba model baad u tihiin taas aan idinku hambalyeynaya halka ka sii wada dawlad wanaagsan dawladana idinku toosiya oo ilaaliya oo farta ku fiiqa oo idaacadiina iyo miidiyihiina ku jeediya si aad u saxdaan maha cadawtinimo waad saxaysaan wadamadana aamusamiidiha aamusantahay cadow waxa imanaya dictatoriyad la dagaalama miidiya waxaan leeyahay farta ku fiiqa meesha daragtaan wixii qaldan daba istaaga sida way xorriyadda qowlku qofkana sharaftiisa iyo karaamadiisa meel kaga dhicina waxaan jirinaa sheegina dhamaantiin waran salaamaya meel kasto dunida joogtaanba وأنا جو أمر كله حسن أمار كين